kulanti waxaan wanaagsan daawadeelada lahaantiin baa meel dunida aad ka joogtaan halka aad naga daawanaysaan waa Som TV Soomaaliya weli waxaan ku guda jirnaa socdaalkii aan ku nimid magaala xeebadka degmada Baraawe maanta waxaan soo booqanay isbitaal ka mid ah isbitaalada ku yaalo degmada Baraawe isbitaalka magaciisa waxa la yiraahdaa Baraawe Community Hospital Baraawe Community Hospital ay Som TV Soomaaliya soo booqatay maanta anagoo ka wareysan doona doctorka xaaladda isbitaalka iyo degmada هل لابو أسيبه مجلس كبلاوايو دكتور كسر دواء سوم تي في سوماليا بسم الله الرحمن الرحيم مركور مجري هو عبد الله عبد الرحمن نوراني هذا وحاك هول جلا إسبيتال كبراوي كوميونيتي هوسبيتال أو إسبيتال مجلس أو كدريمي كرتين كوميونيتي هوسبيتال واي محلها كوميونيتي هوسبيتال واي horena waxa uu ahaa jiray agaasimihii hore isbitaalka weyn ee degmada waxa igu dhiirigeliyay in isbitaalkani ama deegaanka ku dhiirigeliyay maadaama isbitaal qaybta caafimaadka degmada aad ugu liidato qaybta caafimaadka oo maxaa la isbitaalka weyn ee ka dhaxayso dawladda idil koonfur galbeed oo hadda wax doctore isbitaalka hadda aan joogno Baraawe Community Hospital maamulka koonfur galbeed miyaa maamula nasa degmada Baraawe laga maamula may waa isbitaalkan waa isbitaal private ah waa community magaca uu muuqatanay community hospital waa deegaanka samaystay wax hoos tago maxaa la dadka deegaanka suubsaday ma hoos tago wax wasaarad ah waxay aad had ilaa had ma hoos tago waa isbitaal private waaye gaabka jiro deegaanka ka wacni u jeedid oo caafimaadka oo u diyaarsan yahay inuu dhinaca maxaa la ka buuxiyo sida emergency-ga lagu qabtaa isbitaalkani khaliimada lagu sameeyaa sida khaliimada emergency-ga ah sida naagaha uurka leh lagu sameeyaa prostate lagu sameeyaa wax walba emergency ah lagu sameeyaa okay haddiina aysan dawlad uusan hoos tagin maamulna uu soo hoostagin hay'adna uu soo hoostagin soo laga ma jiraan caqabada aad kala kulanteen xagga qalabka ama xagga service-ka oo aad u baahateen oo maadaama uusan ku tiirsanin isbitaalka hay'ad ama maamul waa maasan tahay sax waa caqabadooyin badan jiro because of private ma kala dhaw waxa waaye waxa jeebka ay ku sameeysid adna jeebka qofka kale oo wax iska bixinayo wuxuu awoodo aga qaadid of course lacala qaliimada qaarkooda sida naagaha uurka leh camal prostataha kulli micnaha waa lacag waaye laakiin qofka anaga ma u xisaabino maxaa la qofka awoodo u hayo lacala qofba awoodiisa kala duwan yahay marka qofka waxa u beesgareena awoodo dhaqaale oo qofka leeyahay micnaha u haysto inuu xanuunkan lagu daaweeyo waa laga qaadaa qof ilaa hadda lama arkin oo laga celinay irida micnaha xag dhaqaale ahaan mana community waxa loo dhahay waxa waaye waxna waa lagu caawiyaa qofkii dhaqaale haystana waa lagu qaadaa waa laga qaadaa qofka haysanna waa la caawiyaa qofka haysanna waa la caawiyaa hada ma santaa marka ma isku dadeen in xiriir aad la sameeysan hay'ado ama maamulka aad ku xirtaan isbitaalka wallahi kolay aniga horta in badan hay'ad u soo shaqeey jiray hay'adaha gobolkan joogo ama gaar ahaan degmada joogo waxay u baahan hay'ad rasmi ah oo international ah ma joogaan ma joogto hay'ad rasmi ah degmada Baraawe ma joogaan hay'ado local ah joogaan oo hay'adiyaabo waxay ka damcaysaaba ama ku oo ama qiyaano ku sameynaysaa ama wax inay ka faa'iido rabaan marka qaarkood marka hadda xitaa u diyaarsanay in hay'ad aan keensano ama hay'ad aan la shaqeeyno because of community-ga deegaanka isku tashanayo wixii wax ka qaban karaan inay ka qabtaan waxa leedahay hay'adaha ka shaqeeya degmada Baraawe dantooda fiirsamaan danta shacabka kama taliyaan wallahi kulay hadda local NGO ilaa 200 ay joogo deegaankani local NGO waa la iska fahmi karaa wax iska daciif ah wax tabar badan lahayn waaye intaas joogaan magaaladii ma kaafiyaan xitaa haday kaafiyaan boqolkiiba mala eko 10 inay surface-ka loogu talgalay ay bixiyaan marka gaabka intaas u batay gaabka jiro Baraawe xagga caafimaadka aad u badan yahay marka waxaan isku dayaynaa anaga inta karaankeena ah inaan buuxino gaabkaas haduu Ilaahay raado hadda mas'alada marka baahida shacabka waad buuxin kartaan haddii aad tihiin team Baraawe Community Hospital horta waa buuxinayba maadaama hadda lama arkin qof Baraawe laga wadaayo xamar la geenayo oo caafimaad darro ahaan
ama baraa wax loogu qabo waayey hadday noqoto waxaan ka qaban karin oo kansarada iyo waxyaalaha qaarkooda inaan iska gudbin waa laga yaabaa laakiin wax oo hadda baraabna dhaafo oo rasmi ah daata aan hayno ma jiro marka taas waxaa la dhigi karaa boqolkiiba 90 waa kaafin dadka baahidooda aad u mahadsantahay dadkan waa ku qanacsan yihiin hawsha adag aad haysaan maadaama xaalad adag aad ku shaqaynaysaan waxa ay aday maamul ah hoos tagtaana aysan jirin dadkii inta badan dadkii waxay ka imaadaan ilaa baadiyaha ka imaadaan dadkii waxay soo raadinayaan caafimaad darro haysay soo raadinayaan oo caafimaad ay raadinayaan dadkii ma kala yaqaanaan inta dawladda iska leh inta waxa iska leh hay'ad inta waxa iska leh private waa ma kala yaqaanaan laakiin waxay rabaan meesha ka helayaan caafimaadkooda saxda ah inta ugu badan maalintii waa qaabilnaa ugu yaraan 20 ruux qaabilnaa maalintii oo bukaan socod ah jiifkana hadda waa u jeedaa kale ilaa 7 ruux jiifto cudurrada aad daaweysaan cudurrada guud oo dhamaanaa mise cudurro khaas oo adiga takhasuskaaga jira ana horta waxaan ku takhasusay cudurrada guud iyo qaliimada inta ugu badan dadkan waxay ka cawaadayaan intaasi waa hadda qof wadnaha laga haayo camal ayo safiir ah camal waan wixii ka caawi karnaa ka caawinaa kadib waa iska dirnaa qofkaas camal gaarsiisan siinaa marka aniga inta badan dadka xitaa oo imaanaya magaaladan waxay inta badan ka caawanayaan infection disease-ka qaarkooda ama qaliimada inay buro ka soo baxaan inay eernooyin ka soo baxaan inay naag uur leh oo ka dhali wayso qaliin u baahato intaas waa horta wax magaalada oo inta badan oo caafimaad u imaado intoodana waa xaalna iyo cases oo emergency ah ama dagaal dhaco ama xabada qof isku tuuraan oo qof dhaawac ama la keeno waa qaabilnaa kale intaas daa qabano macnaheedu waxa waaye baahidii boqolkiiba 90 dadkii ee ku noolaa degmadii iyo hareeraheeda waan sameynaa ma sha Allah aadi aad u maasantahay sida tarkaysan daawadayaal doctorka waa doctor aad u danayn ku istaagay dadkiisa dalkiisa iyo shacabkiisa inuu wax u qabto asigoon hoos tagin isbitaalka arkaysaana Barawa Community Hospital asiga maamula isbitaalkana ma hoos tago waxay ada ama maamula ama dawladda dadka Barawa ayaa isbiirsaday oo u istaagay dadkooda inay ka taliyaan caafimaadkooda iyo horumarkooda insha Allah doctor waad ku maasantahay warbixinta quruxda badan aad siisay insha Allah waxaan rajaynaynaa dhalinyarada kale ee Barawa ee cilmiga leh inay kugu dayan doonaan insha Allah